beesha xawaadle ayaa maanta u calaamadeysay in ugaaska cusub ee beesha xawaadle uu noqdo ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas qaliif ugaas rooble ugaas warfaa kadib geeridii ku timid allaha u naxariistay ugaas xasan ugaas qaliif ugaas rooble oo 23 bishii hore geeriyooday shir ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan xildhibaano odayaal nabadoono waxgarad dhalinyaro iyo qaybaha kale ee bulshada beelweynta xawaadle oo barqanimadii maanta beledweyn ka dhacay ayaa lagu shaaciyay in ugaaska cusub ee beesha xawaadle loo calaamadeeyay in uu noqdo ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif iyada oo dhaqanka beesha la marayo munaasabada caleemasaarkan ay dhici doonto muddo 4 bil iyo 10 cisho kadib ah nabadoono odayaal iyo waxgarad ugu horeyn munaasabada ka hadlay ayaa ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan ugaaska cusub ee beesha xawaadle ugaas yuusuf ugaas xasan inta kale ugaaska nalaamaynay meeshan hadda nala fadhiya ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas rooble ugaas khaliif ugaas rooble waxaan leenahay ku soo dhawow arrin culays badan ayaa lagu dhiibay arrintaas oo u baahan xag dhaqan kaaga baahan xag dhalinyaro kaaga baahan xag maamul kaaga baahan xag ummad kale kaaga baahan xagga deriska kaaga baahan Soomaali weyn kaaga baahan waxaan rabnaa booskii Allah u naxariistay ugaas khaliif ugaas rooble ugaaska ugaasyada wahay inaad booskiisii gaartay ayaan ka rajaynaynaa la tashigeenna wada socodkeenna wax iska maqalkeenna isla ogaashadeenna intabana Yuusuf aan ku soo dhaweynaynaa asagana intaasaan leh waxaan ognahay wax dalka ka jiro daruufaha dhibka badan codsiga waana la siiyo wax la reeri waaso wixii sideeda hay'ad ahaayeen ayaa meeshii sii joog loo soo noqon annaga horta waxaan idin sheegay reeri waasahan inta tashan meel ma tigin xawaalaan loo yeerahan soo galnay haddana tan asugu noqonaynaa malihiyo xawaalaan ka midnahay waxaan la balama hal waaleeyo waxaan leeyahay codsiga xawaalo waa taxgelayna asagaan ka dhalanay meeshii cid loo noqonayo marjaca waxay noqonaysaa Yuusuf Xasan Waas ugaaskuna waa calaamadaysan yahay dadka waa laga yaqaanaa qoom iyo dad dhan jamhuura meel isku yimi inay ma aragtay hoggaanlaanayna noolaa karin geedkii weynaan harsanayna naga jabay ilaahay ha u naxariisto waa inaan marka intaan ka gaarayno geed kale habkan u sii noolaan lahayn waa inaan mataqaanaa waa inaan ku dhaqannaa inaanu midnimo xawaadla ka shaqayno waxaan isugu nimid madax iyo majaba oo wasiirku noogu sareeyo arrin xawaadlaan isugu nimid arrin siyaasadeed isku meelnaan iman waxa naga aan ka midaysannahay arrinkaasan isugu nimid inuu sidoo noogu hirgalay asagana aan u gaarno heerkaan rabno inaan haddii ilaahay yiraahdo gudoomiyaha maamulka gobolka Cali Jeyti Cismaan oo dhankiisa hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in la helo hogaamiye dhaqan oo buuxiya booskii ugaaska si ay u sii socdaan howlihii kala duwanaa ee beesha darajo baaridna adduunka kulli kama shaqeyso darajo siman ma shaqeyso kulli in hoggaan jiro oo dhaqan jiro oo adinka nooga maxaan ku raad expert ku ah oo hadda maxaan ku raad qabiilka dhaqa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa dhankiisa taageeray go'aanka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka xawaadle ay ugu sii calaamadeeyeen in ugaaska cusub ee beesha uu noqdo ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble waxa uuna ballan qaaday inay ugaaska cusub dhankooda siyaasiyiinta xawaadle haddii ay yihiin ay la shaqayn doonaan aniga kulankan aan ka soo qayb galay maanta waxaan lahaa uga faa'iideysa xawaadle maadaama maanta meeshan ku kulansan yihiin inaan u sheego oon dhaho qofka markuu imaanayo waa loogeey laakiin markuu baxay lama ogeyn yaysan kugu noqonine dadka wargeliyo inaad baxaysid u sheeg sii dardaarma taasi ujeedadayda ahayd waan hore u qadintay arrinka labaad oo meeshan ka dhashayna waa wax wanaagsan waaye oo tala xawaadle wax ku yimid waaye waa ku mahadsantihiin annagana waxaan diyaar u nahay inaan taageero iyo isgarab istaag wixii qabiilka xawaadlaha ah oo horumarkooda iyo midnimadooda looga shaqaynaa diyaar u nahay xawaadlaan ka mid nahay wixii dhaqan lagu saxaa
arrinka go'aanka xawaadla ah oo ah in ugaas yuusuf uu hawsha sii wadane ayadana waxaan leeyahay halala shaqeeyo hal qof haddii mas'uuliyadda la saaro shaqo ma qaban kare halala shaqeeyo in lala shaqeeyna waa codsana annagana diyaar aan u nahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed ibraahim siyaad